Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalilan Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta markii ugu horeysay ka hadlay qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo tan deegaanka. Madaxweynaha waxa uu sheegay inay caqabado fara badan ay jiraan ka hortaagan in doorashada la qabto hadday noqoto dhanka dhaqaalaha, balse ka xukuumad ahaan waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay in ay qabtaan doorashada, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa. dadku waxay dhaga u taagayaan buuq siyaasi ah jira. waxaan leeyahay Somaliland maanta intii odayaasha ay ganacsatada ay dalka wax ku lahayd ka dhaxsima joogtaa haddayna doorashooyin qaban waqti ugu suurtagashan taladeedu way murgaysaa waa dhab istiitii kale waxaan u baahanahay doorashooyinku way daahay waxay u daahay waa tamar daraanteedna siyaasadeed marka hore oo de curdaysa wax kala ordiyay xisbiyadu waa curdin siyaasadoodu waa curdin qolada xisbiyada inteeda hogaamisa dadku ma ka mid nahado ila meer sawada kama naasoo dhicine talada ciirinaysa ilka baraba ah ayaan la hardamayna waxa curdina sharciyadeedii oo imka dhismaaya oo iyagina de baahidooda iyo guduloodoodii marka duruufahaas warshadaheena u daaheen ee leeyahay u jabilayahay ee warshadii sawirka dhisan kale laanahay ee wadooyinkeenu wuxuu yihiin ayay siyaasadeena u leeyahay u gaabanaysa waxaan leeyahay mudnaanta ay wasiina marka hore inuu siyaasadda jiro oo isugu tago oo doorashooyinku soo qabsanayaan inagoo wada jira oo dhinac walba ka eegnay oo aan isku haaraamin oo aan ciidana cid ku maagin aynu u qabsanahay labada gore iyo golaha baxay dowladaha hoose iyagu xoog ma fadhiyaan mana diidana in la bedelo waayo xeerkaas aasa waa rag iyagu garanaya mas'uuliyadda oo de xilkiiba jooga hal qodob oo aynu mahadinay laakiin badan baa jira waxaynu ku darsanay dastuurkeena oo leeyahay waa marka quran talada sax ah helay golada doortay baa bedeli kara dadka imika aad u qeyriyay dhibsanaya golo 15 sano maraya guurta oo 30 maraysa kuwii kale 3 ku socda waxay la degayahay dawladda Soomaaliya qodobkaas ay laad golo bedel ha gaaro waayo raagideedu waa dhibaato laakiin waxay dhaantaa foodada iyo isdhexyaaca la waayid ma xalaalaynayo inay dooxaan golayaasha lagu dahay tamar darrada keentay waxaan waa maanta waxa la saaramayo de xogaan baan oo cid walba ragga golayaasha jooga inay diyaar u yihiin in la bedelo laakiin waa si fashan cilmi u leeyahay ay suuqa iyo haramadii ee xabumaraha waa kulan sharcigu ma qabta waka gudoomiyay baarlamaanka aroorta wixii oo dirin iyo sharcigu dhaadino kale oo diyaar ana saxaab ka guurtana waa xaalad laakiin waxa weeye de waa in wixii naga dhinac dhamayna oo nacad ku dhamayna doorashada saddex qodob hortaagan ka ugu muhiimsan waa dhaqaalaha waxaan leeyahay Soomaaliya hadday doorashada dhaqaalaha bixin weydo oo cid kale ka bixiso wariga soconayso nin taladiisa ka bixiso qof taladiisa cid u maamusha meel ma gaaro waa inuu bixin karaa wax badan ma aha dawlad ganacsato dadka ka shaqeeyo hawsha yareeya inagoo warga doorashada inaanay ahayn kursi doonaya ay tahay nolosheedii iyo maamulkeedii markaynu isugu tagno wariga u qabsan karanayo oo isyeelay khilaafaadku wax la karo ka wareeyo waa dhaqaalaha ay hortaagan commission kan imika taagan waa masala basiida waa wax xalli karo waa inta la iska imanayo muxuu ku basiid yahay dadku marka ay wax isku qabtaan laba hal bay ku heshiiyaan maslax iyo xaagaan haddii xaagaan maslax sacuudana sharciga la raaca labadiba awoodda waran sharciga way loo yaala xaagaan maslaxga way loo yaala labadooda kuma karra laakiin miir qalab soo yimaada yaa waana lagu wada hadlay miir qalab soo tasoo haday waa kuraasada baarlamaanka lagu fadhiyo oo in badan laga cawdo oo la yiraahdo tabash iyana waa masala basiida war maanta masala biyeela miyaynu karaynaa tan dib ma dhigana tan hore ma qaadnaa wax la garan waayo ma waayirkii waxa su'aal sadarteed waxaan leeyahay Soomaaliland maanta qorshaha qurux yaala waa inay isugu tagtaa iyadoo ay wada socota oo kala raacnaya oo tashatay inay doorashada qabano